يعني أشهد وأنا مصري المجتمع الصومالي الآن هو من أفضل المجتمعات التي تحافظ على هويتها الإسلامية. ما نراه في هذا المجتمع anigoo Masri ah ayaa ka marakacaya inay si weyn u ilaashato shacaa'irteeda islaamiga ah. Bulshada reer Somaliland waa mid ka mid ah bulshooyinka ugu wanaagsan ee ilaaliya shacaa'irta islaamka marka la barbar dhigo kuwa kale ee muslimiinta ah. Dr. Caadil Qanaadil oo ah dhakhtar ka soo jeeda dalka Masar ayaa shacbiga Somaliland ku amaanay ilaalinta diinta islaamka iyo shacaa'irteeda. دكتور كوكا اللي مناسبة ديوان سوق من قابسة وسارد الدين توقفت سومالي لان أيا يريد يعني أشهد وأنا مصري المجتمع الصومالي الآن هو من أفضل المجتمعات التي تحافظ على هويتها الإسلامية. ما نراه في هذا المجتمع anigoo Masri ah ayaa ka marakacaya inay si weyn u ilaashato shacaa'irteeda islaamiga ah. Bulshada reer Somaliland waa mid ka mid ah bulshooyinka ugu wanaagsan ee ilaaliya shacaa'irta islaamka marka la barbar dhigo kuwa kale ee muslimiinta ah. Idinku waxaad ku jirtaa nimco weyn, waxaana in idinka mahad celinayaa waxa aan ku arkay bulshadan ee ah dhaqanka islaamka iyo ilaalinta shacaa'irta islaamiga ah. kama aragna bulshooyinka kale ee muslimiinta ah sida aad idinku muujisaan. نراه في أي مجتمع آخر waxaan u aragnaa si dhab ah oo muuqata. نراه يتمثل أمام أعيننا واقعا. waxaanu ku aragnaa wadooyinka, masaajidada iyo hay-adaha dawladda. نراه في كل مكان، نراه في الشارع ونراه في المساجد. hambalyo ayaad leeyahay dadaaladan aad bixinaysaan reer Somaliland. فهنيئا لكم، يعني هذه الجهود التي تبذل alle ayaan ugu dhaartay marnaba khasaaro ma noqonayaan, balse mar walba iyo goor kasta waa arrin midho oo aad haysataan. والله لا تضيع سدى أبدا، بل هي تؤتي ثمارها في كل وقت وكل حين وفي كل الأخلاقيات التي يتخلق بها مجتمع صومالي لاند. dhammaan bulshada reer Somaliland akhlaaqda iyo la macaamilka wanaagsan ee ay dhaqanka u leeyihiin waxaad ka dareemaysaa markaad la macaamisho ee aad dhex gasho. يعني الشكر الجزيل لوزارة الأوقاف يعني على هذه الرسالة. runtii waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa wasaaradda awqaafta arrinta wanaagsan ee ay gudbinayaan ee ah ilaalinta awqaafta. مستقبل صومالي لاند يعني حتى تكون نموذجا. Somaliland waa tusaale wanaagsan oo ilaahay idinkii ay ku daydaan dhammaan hay-adaha islaamiga ah iyo dhammaan xitaa dalalka muslimiinta. وتحتذي به جميع المؤسسات بل وجميع الدول الإسلامية. aniga shakhsiyan marka aan ku laabto Masar waxaan idiin noqon doonaa safiir. إن شاء الله أنا شخصيا سأكون سفيرا لكم حين safiirkaas oo bulshada Masar u sharaxaya sida ay u nooshahay bulshada Somaliland, sida ay u ilaaliso akhlaaqdeeda, qiyamka islaamiga iyo caadooyinka iyo dhaqamada islaamiga oo ay tahay inay ku sifoobaan dhammaan bulshooyinka islaamka ah oo ay ku daydaan. كيف يحافظ على أخلاقياته، كيف يحافظ على قيمه الإسلامية. waxaan arkaa in annaga Masar ahaan aanu ka liidano arrimo badan oo dhinaca Somaliland ay ku wanaagsantahay oo diinta muujinteeda ah. أرى أننا في مصر نفتقد الكثير والله، يعني هذه شهادة مني وأنا مصري ولا يجب أن أقول ذلك. wallahi tan waa markhaati iga yimid anigoo ah muslim, mana habboona inaan sidaa idhaahdo, balse waa maraq xaqiiqa oo aan ka markhaati furaayo ilaahay hortiisa iyo dadka oo dhan in Somaliland ay tahay hormuud muujiya dhaqanada islaamiga ah. cidda timaadaana ay ka arkayso in ay tahay dal muslima oo muslimnidiisa ku adag.